الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه وحبيبه محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaal sida dareensanayden khudbadeena waxay ka warramaysay cunitaanka xaaraanta iyo cirib xumada uu leeyahay. qodobka hore waxa weeye heerka uu ka taagan yahay islaamku in xaaraan la cuno, xoolo xaaraana baynu ka hadlaynaa. cunitaanka waxaynu uga jeednaa isticmaalkiisa, sidii la doonaba ha loo isticmaalo. waayo casrigan aynu joogno dad badan baa hamigoodu wuxuu noqday sidee loo hawshoodaa xoolo loo ururiyaa, meeshii la doonaba ha laga keeno. nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam musiibadaa uu kasii digo aakhiru zamaanka waxaa dhici doona buu uhi waqti uu qofku ku dadaali doono xoolo inuu ururiyo, xalaal iyo xaaraan mid kuu doonaya ha ka keeno. qofka muslimkiina sidaa ma aha. nebigaa mucallim inooga ah sala allahu calayhi wasalam. xabba timiraan xaafadayda ku arkayaa buu ihi o waxaan is odhanayaa afka geli, kadibna inay sadaqadii tahay baan ka shakiya, waan iska daynaya. maaha inay ku cadda, laakiin waan ka baqayaa inay ka mid tahay sakadii iga xaaraan tahay. isagoo keliya maaha, ubadkiisana saasuu ku rabayn jiray iyo asxaabtiisa iyo ummaddiisa. inankii yaraa awowga ahaa xasan xabba timiruu qaado afku geliyey, wuu ka gaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam. intaanu liqin, waa ilmo yar, mukallaf maaha, xilmo saara. laakiin rasuulka arkaya sala allahu calayhi wasalam, ish buuri iska tuf, miyaanad ogeyn haddaynu aalubeytka nahay rasuulkii aalkiisa inay sadaqadu inaga xaaraanta. wuu ku rabeeyey, sidii buu ku qayday casharkii, ummaddana kusii gaadhsiiyey. asxaabtuna casharkaa way liqeen oo way qaateen oo ilaahay uu ku anfacay. walataynu rajaynayno innagana ilaahay inagu anfaco. abubakar baa nin addoonkiisa ahay, wuu u soo shaqayn jiray. ishadu dambu uhi waxaan kuu soo shaqeeyaad cuntay ma ogti? maya buui. waniba berigii aan joogay berigii jaahiliyada islaamka ka hor waan yaro faalin jiray buui, noocan foox iyo tusbaxa ridaan ahaa. manaan wanaajin jirine xaaraantaa laftigeeda iyo macsiyadaasaan sii qalloocin jiray. nin baa khiyaameeyey buuhi wakhtiga ah. maantaanu is aragno intan adduunkaa buu ii dhiibay, falkaasuu ka soo jeedaa buuhi iyo sixirkaa iyo balaayadaa. abubakar ilaahay wuxuu kula ballamay inaanu xaaraan cunine. intii uu karayay buu sameeyeyoo afkuu farta iska gelaya, wuu iska hunqaaciyey. macnaheedu waxa wey ilaah intaa karayaa waa inta, wixii iga soo bixi waayo dee anugu ma kari karayo, markii horena uma kasay. bal maxaad u malayn adinkii abuubakarkaas iyo adigoo liqliqayoo le maxaa la helaa uun haddaa isku jirno doonaysaan sayd isu gaadhi, sideed ragbigooda iyo jamacooda aynu gaadhi karnaa. xaaraantu walaalayaal kama mid aha dembiyada yaryare, waa dembiyada waaweyn. 7 dembi oo waaweyn buu nebigu tiriyey sala allahu calayhi wasalam. wuxuu ku daray xoolaha agoontoo la cuno waa xaaraanti, iyo ribadoo la cuno waa xaaraanti. 7 dembiye waaweyne dilka iyo sixirka iyo kuwaas ka mid yihiin, kuwaasuu ku daray. marka ha u qaadani nooc kastay tahay xaaraantu wax sahlan inay tahay. 2 arrimood baynu sii raacin doonaa cuqubada xaaraantu ay leedahay. xoolo xaaraan oo la isticmaalo cuqubaday leedahay, bal si dadku ay cilmi ugu yeeshaan oo arrintani halkay ka taaganta islaamka ay ogaadaan. iyo masaadirulxaraam, meelaha xaaraamta laga kasbado inaynu dul marnayno si aynu ogaano, waa ognahay aynu sii akidno. cuqubada maalka xaaraantii uu leeyahay wuxuu ku dhici karaa naftaada iyo ehelkaaga iyo maalkaaga iyo ummaddaada iyo waddankaaga iyo adduunyadaada iyo aakhiradaada iyo qabrigaaga. meel kuu fayoobaanaysaa ma jirto. kol haddaad maal xaaraana liqday, intaasiba way kaa ibtiloobeen, cuqubana way kaaga dhacaysa. cuqubada koobaad uu nebigu sheegay waxa weye sala allahu calayhi wasalam, xadiidkii saxiixa muslim ku sugnaa, qofku hadduu xoolo xaaraana cunabu ducadiisa lama aqbalayo. mar hadduu dhar iyo dhuun iyo cunno iyo cabitaan iyo mid lagu soo koriyaba xaaraani ku xeeran tahay, weligiiba yaa allaahu yaa rabbi ha badiyo, lagama aqbalaya buu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam. qofku ilaahay wuu baryayaa, laakiin maxaa ka hor jooga ducadiisi? waa xaaraan cun.
waarinaynu arkayna waqtiga dambe oo dadku bariyi hore iyagoo xoolahooda iska dhaqdo oo dee neefkaa wixii uga soo go-o xalaashaa unbay isticmaali jireen ducadooda waa la aqbali jiray wax badan oo walaaqan markaynu isticmaalnay ducadii waa adagtay aqbalkeedii cuqubada waxaa ka mid a maxqulbaraka waxaad haysaa ha iskama badnaada laakiin waa biraabaraku tiraha iska yeesha laakiin tayo ma leh ilaahay baa wuxu uhi yamxaqu allahu ribaa wa yurbi sadaqaat wixii sadaqee wanaagsana xalaala ilaahay wuu badiyaa waa barbaariyaa baashii ribadu wixii maalkay ku jirtana ilaahay wuu baraka tiraa waa xaaraantii nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay xadiidkii saxiixeynka alxalifu manfaqatu lisilca mamxaqatu lilbaraka waxaa la yidhaha dhaarta beenta ah ee xaaraanta ee xoolaha aad ku socodsiiso alaabta way kaa socodsiin laakiin barakaday tirtiraysaa masaxaysaa buu nebigu sala allahu calayhi wasalam maxay badnaantiisu kuu taraysaa wax bilaa barako ah oo kulayl laga qaadaya haddaad urustaad haysato cuqubada saddexaad waxa weeye alghadabu wallacnu calaa aakili lmaali alxaraam ilaahay waa nacdalaya waanu u cadhooday qofka xoolo xaaraan oo ururinaya bal dadku aad ha u dhegaystaan waxaan daliil ahayn sheegi mayno ilaahay baa wuxu uhi ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi waaymaanihim hamanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi laakhira walaa yukallimuhum allahu walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaama walahum cadaabun aliim dadka ku iibsanaya ballankay galeen iyo dhaartay mareen adduunyo yar xagga dambe aynu ka sharxi kuwaas aakhiro calaf kuma laha baa ilaahay nasiib kuma leh cid kale waxba heli laakiin kaasi waxba heli maayo ilaahayna ma eegayo lama hadlayo maalinta qiyaamaha dembigana kama dhaafiyo cadaab kulul buu leeyahy waxaasaa ilaahay uu ku ururiyey xadiid saxiixa muslim ku sugan nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau uhi lacana allahu aakila ariba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayhi hum sawaa allaha nacdalo qofka cunaya ribada iyo ka cunsiinaya ee isugu soo hagaajinaya karaaniga waxu kala qoraya adeegayaasha markhaatiyada dilaaliinta waxoo dhan waa isku mid buu nebigu uri sala allahu calayhi wasalam arriba waa baasha hadda laynoo xayeysiinayo waxaa kaluu nebigu uhi sala allahu calayhi wasalam lacana allahu araashi waalmurtashi xadiidku waa xasan allaha nacdalo u fiirsatay inu uga jeednaa waxa weye cuqubada allaha nacdalo laaluush bixiyaha iyo ka qaataba alfaada qaarkoodna iyo ereyada qaarkoodna waxay ku darayeen raa'ishka dilaalka isaguna isu jiidaya xadiid kale saxiixeynka waxau ahaa lacana allahu assaariq yasriqu lbayda allaha nacdalo tuuga wahan yaryahay xabad yaroo beedu xadaya iyo xadhig yar iyo wixii la mid a xadiid kaleoo ku sugan saxiixeynka nebigu waxau uhi lacana allahu man gayara manaara alard allaha nacdalo dhulku calaamadahay leeyihiina dadku kala dhigteen qofka bedela baloodh iyo beer iyo meeshii ummaddu iska agdhowda qofka xadaya ee wax turkinaya wax bedelaya allaha nacdalo ayuu nebigu leeyahy sala allahu calayhi wasalam waa xaaraanti lacana alkhamr calaa casharati awjuh xadiidkaasina waa xasan 10 siyood buu nebigu u nacdalay khamriga iyo wixii ku xeeran xataa gaadiidka lagu qaado xoolaha lagu qaado ka cunaya ka gasbaya waxoo dhan isku wada dar waxaa cuqubooyinka ka mid a afraad alcadaabu fi lqabri inuu ilaahay qabriga ku cadaabayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waa xadiidkii bukhaari waxau leeyahy habeen baa ilaahay dawaafiya wuxuu i tusiyey dad badan oo la cadaabaya qubuurta lagu cadaabaya caalamkan barzakh waxaa ka mid ahaa qof isagu webi dhiiga buu dhex taagan yahay webi dhiiga waa dhiigu dadka ka shaqeeyo gofanu ahaa ayuu dhex taagan yahay kolkuu isdhaahdo ka soo bax nin baa dhagax weyn la ag taagan webiga qarkiisa afkuu kaga ridayaa sagxadda usha isu geynaya intaasina booduu ka dhigaya uu burburinaya kolba dib buu usoo noqonaya saasaa ilaa qiyaamaha lagu wadaya ka cadaabay dhiigu cabbayaa lagu cadaabay oo laga dhigay mid webiya waxaa ka mid a cadamu qabuuli sadaqati qofka xoolo xaaraana ururiya weligiiba ha bixiyo masaajidda ha dhiso malcaamado
dad muxsiniina sadaqo weligiiba saa ha u fataho ha sii daaya wax sadaqo laga aqbalayaa ma jiro maba laha muxuu sadaqaysanba waa xoolihii ummadda رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوري لا تقبل صدقة بغير طهور لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول حديث كي مسلم صلاة لما أقبله أنا قفك ويس قبين دي أما أنا ظهر قبين صدقنا لما أقبله وإلى هاي ما قدومه توقع لك كان يحول حرام حاجات سعادة كويس حاجات نفترض مفسود كن نقنيسا أديكو أن كوكر عن سنة واحد بحنيسا بين لقاء أقبلي حديث كلا حسن وترمية من ماجه يورني أو حورني ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان يسره عليه قفكو هدو حول حرانا وروري وحكا صدقيستو وحبال لقاء ما أقبلي الدم بيجي سنبه سارا انت الاجر كاي شيء iska daayo dambigiisu ba ku saaran adiga dadkuna waxoodii baa u soo noqday ad ka qaaday waxa kamida nuzulul balaya ala an-nas dadka balaayooyinkan badan ee cudur leh cadow leh cayd leh kala duduwan xaraantaas ay ka imanaysa wama asaabakum musibati fabima kasabat aydiikum wa ya'fu an kathir in badan baabaan idinka dhaafay baa ilaahay waxa kamida فساد القلب وحرمان حلاوة العبادة والإيمان قفك قلبك سينو لمنايا كل هدو حاران عنوضه إيمانك سي عبادتي سمدنا لنا نمصمين أيوه فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم وحكم ذا الجرأة على المعاصي قفك إنه كل هذا شيء معصية بس كحلاشنا يا وسهليل يا shaqooyinka kaleba tana kala macaanba nimankii yahuudda markii ribada lagala hadlay waxay yiraahdeen inama albay'u mithlu riba ribada ayaaba ka wanaagsan iibka caadiga ah faa'iido laga helo wax caadiya ma aha wax laakiin ka caadiga ee caalamiga ee macaani waxa way ribada baydaan way dabarogeen ba waxa sheegaysan baa caadiga waxa ka fiican baydaan in riba lagu shaqaysto wa al-jur'ah qofku xaaraantu xalaashanaya marka dambe heerkaas uu gaaraya musiibooyinka kamid masaadirul haram meelaha hadiya jeer xaraam dadka ay ka soo gasho hadaynu dul marno waa ognay mid waa ribadaas oo soo aragnay ayaamahan aynu joogno dadka qaar kood baa mutacallimiin iska dhigo oo meelaha tifiyada ka hadlo ribada weyn iyo ribada yar wax la baad qaar la baad arkaysa xagay taas islaamka ka jirta riba weyn iyo riba yar wadaru ma baqiya min ar-riba abu lahayli wax alla waxa ribada ah saqiiratan wa kabiira intay doonaysa ha ahaatee sida u dhantay ribada ka taga waxa ribada la yiraahdaa ma kala yara haday shilintii hadii ay boqolaal intaas oo kun tahay waa isku mid si kala qofku ha u shaqeystay laakiin lama oran karo riba yar iyo riba weyn ribada kulluha waa xaraam marka qofka taaxayeysiye ummadda u xalaaleeyaa intana adilaabu jabinaya uu kaga bixi karaaba islaamka yajib alayhi tawba inuu ilaahay u soo noqdaaba waajiba jahli inuu dadka wax ugu sheego maaha qofka ribada maanta ka hadlaya dadka u xalaaleynaya u falsafadeynaya waxa kamid ah al-qish wal khidaac fi al-bay' masaadir al-haram ila haramta laga soo kasbado in dadka marka wax laga iibinayo tiradiisa la khiyaameeyo wax laga iibinayo ama tayadiisa ama been loo sheego man qashana falaysa minna waa dadka baac mushtariga ah iyo dadka mucaamalaadka ku jira ayuu nabigu digay wuxuu leeyahay qof kasto isweydaariya muslimka iyaga kama midnaha dhaqanka muslimka ma aha buu leeyahay nabigu kaleey salaatu wasalaam meelaha xaraamta laga shaqeysto waxa kamida saahoraba inuu soo ishaarnay ikhtisaabul ard dhul boobnimada inuu qofku dhulka ku bahaloobo oo iska qaato ama dad ha ka qaado ama danta guud ha ka qaado hadduu qofku beer iska xidho banaankaas uu iska ooto oo yiraahdo dhirteedana ana xaaba ka shidanaya cawskeedana ana guranaya cid ila lihiba ma jirto asadkii hantidii umadu wada lahayd buu qaatay yaa xalaaleeyay qofku hadduu dhul iska ooto oo loo sharciyeyn waxna aanu ka dhisin malaha dhul boobnimadu waa noociya badanta mar haddii aanad camirin oo waxba ka qabsanin oo ka faa'iideysanin umada kabalihi kama xaji kartid wax kama cuni kartid sadaqa kama bixin kartid miya magaalada waa musiibada in haystee dadkiiba ay ku coloobeen
وحكم إذا أكل مال الأيتام والميراث لحلك أغانت ولا عنا قفك وحي والدك وقت جيباو المه يراو كعنايا أما مكتي عرورت الله سوق هذا بيس كعنايا عاقل هذا إيه سلطان هذا إيه أضياش إيه رير إسك قيب سنة يا وحي قبنا الأورنج كنت أنا رير كعنايا كنت أنا أغانتي بالأورنيا وانو دين دقني يجوا قايلين يا ولا وحي يجا نود داي وحولي أبهود وقد انتهون مكتاس وكم إذا واحد توجد الله إذا نوع كستي تهيبا ضدك مركا إسكا إيمانكو وكقولمه واحد ضيعان بيو قوانين حلالية واحد الله إلالينا يانا إنه حرانية أرنكو هالك سودة كجارة مركا يسيفو قادان واحد هدي الله إلالينا ياركين الله إلالينا يو وحرام بولي هدو ضيعان هنا الدواب حلال وحساس وكلا جحد الوديعة qofkii amaano loo dhiibay ila ma baan arag de dadku buuxka amaanaysanaya oo dafiraya ama baadi buu helaya oo la aamusaya mid xumooda iyo mid noola mid kasta ha ahaato dad saa ku dhaqmaana way jiraa waa qaybaha xaraam qaniimad la helay ma aha hadad baadi hesho ama lacag ha ahaato ama miyiga xoolaha jooga ha ahaadeene waxa waajib kugu ah waqtigii loo baahnay inaad yabohayso hadii kala xaraam bay kugu noqonaysaa dad saa ku qaadato وحكم إذا الرشوة وما أدراك ما الرشوة وحلا إلى هذا اللالوشك وأيامها سوقي سحامية مركا كرسي قاية وحالا دقدقاتشيو ضدك ملاحظي مركا ورائن بدنو كميدي شعب كي لالوشا سي الله دورت كل كي يجي صوب حانا تيجي بالالوش دوني لسيقا مركا ولا لقا قاضي waxaan saaka aad ula yaaban arkay xildhibaanadii soo baxay nin kamid ah baa uu qaylinaya wuxuu leeyahay war ilaahay ka cabsado laaluushka nagu daldalaysa naga daaya manihin xoolo dabaaxada oo saylada lagu kala iibsanayo ee waxaan ay dad bani aadam oo fikir leh doorashadeeda noo daaya isagii baa yaabay markii uu arkay lacagta loo dhiibay faraha ay leedahay waxa la yidhi markhaati beena aad u furtay kaana muraadsay waxa tahayna ogaa عدك إلا يبسدوا حرام وطائن سؤالك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك الله خلق لهم في الآخرة إلهي بأوحوا الله يكوى إيبسانية عهد قيدتك وقادين يا كتابك مرين وأيمانهم لا رهودي وحيقول الله إن أنتلك يدتك يدي أنت داعضه يدي من أولي وكدن بيسينيا انتهى إسان صواب وربورا حتى دارتني نويه الرئيس أنا وآخرة وحبا وقما هيا بقى إلهي ولا أدون كانوا على فلان marka qofkan hadaad markhaati been u furtay go'aan been wax kaga qaadatay adiga mistaaqiyadaada halkaas ku saqiirtay ku dhimatay shakhsiyadaadi dadkuna wuu isog yahay ilaahay xaqiisa marka laga yimaado dadka ilaahay uu og yahay laakiin ummaddu way istaqaanaa hebelad xaqu ka dhacay maxaa leexiyay maxaa loo dhiibay dadku iyagoon meel wada saxan hoosta isaga daloolaano macluumaad bay wada hayaano wadada yar oo kooban marka qofka shakhsiyada leh iyo qofka laaluush qaataha iyo qofka gacanta ka hadlaya hunguriga waa la kala yaqaanaa idan marka waajibka ah waxa weeye inaad ilaashato iimaankaaga iyo akhlaaqdaada iyo ballankaad qaadiya dhaartaad martay iyo bulshadaada shakhsiyadaad ku leedahay si aad ilaahay agtiisa ummadda agteedaba sharaf u yeelato oo aad nabad gasho marka casrigan waxa aad isaga batay laaluushkii la qaadanaya ama hay'ada laga qaato ama qandaraasa laga qaato ama tartan ha laga qaato ama shaqo la galaya ha laga qaato ama kursi ha laga qaato iskaga fogaada ummadda uga diga ilaahay uga bari noqda laakiin haddaad la bixiso iyo haddaad la riixdo iyo haddaad xoolaha ummadda ka bixiso iyo haddaad dilaal ka qaadato lacana allahu raashi walmurtashi walraa'ish allaha nacdalo liiska nacdashaad soo galaysa ka laaluushka bixinaya iyo ka qaadanaya iyo dilaalka wasiidka ah dilaal baa dee xiibaya oo ordaya dilaalintii baabuurta iibin jiray iyo kuwii guryaha iibin jiray qaar ka daran oo si hoose u shaqaynaya halkaasaa la maraya idan waxaynu baraarujinaynaa cudurradaasay leeyihiin xoolaha xaaraanta la cunayo guri baad ku dhisatay jagaad ku iibisay horay baad ka dhimatay kadibna dad baa ku raaxaysanaya kaa dambeeya adigana qabrigaa lagugu bukaasaya sabarado kulul ayaa qabriga kugu dhacaya iyo dubayaal xaaraantii dadka ku dhaxlaya aad u shaqaysay daraaddeed ilaa an yarita allahu alarda waman calayha inta adduunku jiro aakhirana waa kaa horraysa
وكا إلهي لما إيجي لما هلا يو ومن حريصنا دم عذاب بانو هيا كوحين لا نهي إسلام ماذا عن العلن شخصية عن العلن كبن ماذا عن العلن ضدك عذر باكو دعاء آذو فالحن والله ما أعرف ماذا قدرن وقبيلة دا وإنه كسر هذا الله يحران هذا العناية الأسكح على الشرع لا بدأسي ومضني ماذا وحيابها باب يبي كمدي أنت لا بدأسي تشيرانها إيجينا إلى ومضاها الله ترتنتان دين إسكداي الدنيا كلها ترنتتان يضل اسماء يدد إسآمنا من ما تشريو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أغننا بحلالك عن حرامك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وأقم الصلاة